وأنا تهنين عط هاي كورم السلام عليكم الصلاة ولا له قالجا هل كان قال سعتنا وشمس أوفيشال سكسو نقد وناكسن ما أنتو حرواينا رياكشن كبيحيو فيديو عجيب وأن آد وجهلي قبر الصوماليات وآد وقروح بدن وأرين عجيب كهذا الشيء waxay ka hadlaysaa guurkeeda iyo ragga u loolamaya guurkeeda dul dhigtay shuruudo cajiib ahaantii shuruudahaasna waxaan u maleynayaa dad badan ama rag badan inay daaqada ka bixi doonaan oo iska soo wada bixi karin shuruudahaas si la isku helaana ay adag tahay wiil intaasoo dhinac ka dhisan maasha Allah marka waa ugu dagaleynaa horta gabadha marka hore aan kaga hordhicin ila soo fiirsada videoga ila soo qiimeeya kadibna isku soo noqonaynaa anagoo falaaqayn doona بسم الله الرحمن الرحيم فرنتو waxaa ku socota wiilish Soomaaliyeed fadlan hadda shantan shuruudood saddex kamid ah aadan ahayn ay soo wicin number 1 waa inaad haystaa master degree number 2 age-kaaga waa inuu dhaxaysaa 25 sano ilaa 35 sano number 3 waa inaad leedahay boss ama oo ku yaal magaalada bartamaheeda ama suuq xoolo xataa number 4 number 3 aad waa inaad tahay nin cad number 5 waa inaad aadan ahayn xaasile araaji qabashadu way socotaa weeydi fadlan haddaadan intaas ahayn ha isoo wicin dadka aan ka qabo doonin lambarka haddaad cabsi sigaarka haddaad xaas leedahay iyo haddaad boos lahayn ima soo wici kartid blogaaga mataqaanaa haye ka warama waa soo fiirsateena u maleynayaa run ahaantii aan ahaan ra'yigayga markaa ka hadlo waa soo dhaweynayaa gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho qaali gabadhaana fariin ay diraysaa waxay fariin u diraysaa gabdhaha Soomaaliyeed inay qaali yihiin ay qaali iska dhigaan waa inay ogaadaan qiimaha ay gabadhu leedahay ragga haddaan la kaftamana hadday jiraan rag shuruudahaas oo dhan wada ka dheelitiran waa la xiriiri kartaan gabadha Facebook ay leedahay dabcan yani aad buu adduunkii yani usii hormarayaa gabdhaha ra'yigooda kama hadli jirin xilliga hore ninkii loogu talagala ama oday ama wixii yani marka waalidka ay isfahmaan oo ay xoolo ay wax inta ka qaataan ay gabadha ku dari jireen in hebela kugu mehersan baa la dhigi jiray adduunku waa hormaray aadaan ugu faraxsanahay inay gabar walba fikirkeeda dhiiban karto ay dooqeeda ka hadli karto ay guurkeeda shuruudo hor dhigi karto way jiraan rag wanaagsan oo aan waxba haysan kuna fakaraayo bari markay wax yeeshaan inay gabadhooda hormariyaan dabcan wax walbana dooqa muhiim aan ahaan laakiin gabadha waa taageeray waxaan ku taageeray waa gabarnimadeeda yani gabdhaha inay qiimo leeyihiin usoo bandhigaysa dadka ta kale way u qalantaa waayo waa gabar xijaaban maasha Allah gabar xijaaban wax walba waa laga bixiyaa gabdhaha dhan inay ku daydaan aan rajeynayaa ma maleynayaa nin intaasoo sharuudood wada safka soo geli karo intaasoo sharuudood buuxin kara waa haddaa boos leedahay waa adduunyo dhan aan ku iri haddaa cad tahay da'da waa maqasheen inta ay yani cadada ay sheegatay qofkii isoo yani sharaxi karo hal xiriira abaayo waa ka gabdhahana waxaan u sheegayaa inay qaali tihiin oo qiimo leedihiin isku yeela qiimaha waa ka dabaayidin waa aragteen gabdhaha la qudbasraysta oo gabarnimadooda banaanka lagu dhaafiyana ka waantooba kuwa hadda yani la leeyahay in يعني لو soo sharaxay inay qodbasarada wax fiican tahay wax walba jaceelka laga hormariyo yani bala waxyaabaha sito nimanka xariifnimada yani ku gaadayaan ha stop gareeyaan oo qodbasarada ha ka hortagaan qaali inay yihiin ha ogaadaan oo qiimaha isku yeelaan waa idinka hade ninkii yani soo sharaxi karana hade liiskiisa ka buuxsamin meel walba marka shaqo tagtahay oo aad meel shaqo iska soo sharaxay yani meel shaqo iska diiwaan gelinaysid ama arji qoranaysid aan aqoontaada iyo waxyaabaha aad leedahay oo dhan meesha ku sheegaysaa Soomaha hadda gabadhu waxay leedahay intaasoo
sharuudood ay kasoo hadashay ninkii yacni buuxi kara booska waa ila soo xiriiri karaa bay tiraahday. ragga qaar oo ayagana la istoobgareeyaa jirto aan taleefanka laga qaban doonin sida ragga sigaarka cabo kaleeto bidaarta raggale iyo waxyaabo fara badan ay ka hadashay. dee waa idinka alisi soo dhisaan leeyahay ninka boos qabano dee waaba afka horaa layiri. shuruudaha la hordhigay ragga inuu cad yahay ayaa ka mid ah. antaasaan hal ka dhihi lahaa. waxaa jiro shuruudahaas oo dhan nin leh cadaantii gabadha ay sheegtay iyo quruxdii intiba leh laakiin aan kartidi lahayn. marka qofka ha madoobaado ha cadaado muhiim waxaa waaye qofka shaqsiyan inuu qof wanaagsan yahay. muhiimadda waa taas. ta kaleeto rag waxaa jiro aan waxba haysanin laakiin habdhaqankooda yihiin dad aada u wanaagsan beri markay waxelaana yacni dumarkooda horumarin kara. marka kuwaana ayagana lama dhaliili karo oo hantida ilaahay baa bixiya laakiin qofka dooqiisa xor ayuu u yahay. gabadhaas dooqeeday ka hadashay shuruudaha waxyaabahay ku dooran lahayd raggay ka hadashay. waayna qurux badan tahay qofka inuu han leeyahay, qofka inuu qiimo isla leeyahay, qofka inuu dareemayo markuu gabar yahay inuu ka qiimo badan yahay marka kaleeto. taasna waa ugu hambaleynayaa. waxaa jira gabdho fara badan oo qiimo ayagana leh oo gabdho ah laakiin niyadda laga jabiyey oo lagaga dhigaayo wax easy inay tahay gabarnimada oo wax walba laga horumarinayo markaas danta oo qofka markaas kaa leeyahay oo jacayl loogu soo gambanayo oo hadhowna yacni mustaqbalkoodii halkaas uu kusoo afjarmaayo. gabdho reerahooda ayagoo ogeen banaanka lagu farsameysanayo oo gabarnimadooda halkaa ku waayayo oo aan ogeyn gabadha qiimaha ay leedahay. marka waxaa ogaataan ama muhiim ah inay ogaataan inay gabadhu qiimo badan leedahay oo gabadha aad iyo aad ay u qiimo badan tahay. qiimahana waa marka adiga isqiimeyso ayuu qofka kale ku qiimeynayaa. marka shaqsiyan marka adiga qof isku kalsoon tahay qiimana aa isku yeesho bulshadana sidoo kaleeto qiimana waa ku yeelanaysaa dhexdooda. sharaftii adiga isku yeeshana waa yeelanaysaa, qaaliga adiga iska dhigtana waa noqonaysaa. marka gabdhahana waxaan leeyahay dee waa ka dooqiina kasoo hadla oo sida gabadhaasoo kaleesa ah yacni wax ay cid u qarisay ma jirto inay qiimo leedahay inay qaali tahay inay yacni shuruudahaas ragga ay dul dhigtay ninkii kasoo bixi karo uu la soo xiriiri karo. ninkii kalena waxay tiri taleefonkii uusan biisi kasoo dhigin oo yacni uusan igu soo mashquulin. yes waa ku raacsanahay run ahaantii waana u hambaleynayaa gabadha maasha allah. run ahaantiina waa gabadh xijaaban maasha allah. gabdhaha xijaaban gabdhaha aan xijaabnayn way ka qurux badan yihiin. gabdhaha qaar waxaa jiro yacni ayagana xijaabkii inta dhigtay moodo xijaab la-aanta inay qurux tahay. xijaabka ku qurux badan tahay waxaa ku keeni weysay xijaabkana ma ku keenaysid markaa xijaabka dhigatay. yacni xijaabka aan ka hadlaayo waa ila fahmaysaan. yacni adoo asturan waxaa keeni weysid adoo qaawan ma keenaysid. gabdhahana taasaan leeyahay. dee waa ka ninkii maxaan ku iraahdaaye soo sharixi kara shuruudaha soo buuxi kara waxaan leeyahay yuusan ka buuxsamin ha isxaadiriyo. dee waa ka asxaabee maasha allah videogaani ahaan funny ila ahaa marka arka aad baa uga hel run ahaantii. waxaan aniga ka helan waxaan jeclahay in adinkeeda la qaybsado idiin soo bandhigo. dee ra'yigiinana dhanka commentiga noogu reeba insha allah. gabdhahana waxaan noo ballanay inaan qiimo isku yeelno. qiimo waa leenahay laakiin inaan ogaano inaan qiimo leenahay, inaan ogaano inaan bulshada qaali ku nahay. waxa wax soo saara dunidan aa arkaysaan waa hooyo. hooyo waa gabar. hooyo markeed hore intee ka imaatay gabaray ahayd. marka gabdhaha dunidu ilaahay bay ku taagan tahay ka sukowna yacni hooyaa wax soo saarta, hooyaa wax dhasha, hooyaa wax soo korisa maasha allah. marka tiirka nolosha waa hooyo. marka gabdhaha kor ha isku qaadaan aan leeyahay oo inay qaali yihiin ha u bandhigaan ragga. dee maana ahaan inaan ragga iyo dumarka isku qabanayo. waxaan keliyo rabaa in halkaan fariin ugu gudbiyo inay dumarku ogaadaan inay yihiin dadka ugu qiimaha badan ugu qaalisan. dee waa ka hadda maanta videogaas yarkaa waa cajiibkaha idinla wadaagaya gabdhaha soomaaliyeedna mar walba waxaa ogaataan inaa qaali tihiin. videogan video lamid intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.